Soomaaliya dhulka ay ka soo baxeen halyeeyo, abwaano, culimo iyo geesiyaal waa gobolka Galgaduud, gobol leh taariikh dheer, dhaqan qani ah iyo door weyn ay ku lahaayeen Soomaaliya. Muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa taariikhda Galgaduud. Ku soo dhawow kanaalkeena Safar Taariikh. Gobolka Galgaduud waxa uu ku yaalaa bartamaha Soomaaliya, waxa uu xuduud la leeyahay gobollada Mudug, Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Itoobiya dhinaca galbeed. Caasimadda gobolku waa magaalada Dhuusamareb oo maanta noqotay xarunta siyaasadeed ee ugu muhiimsan dalka. Sidee ayuu ku baxay magaca Galgaduud? Taariikhyahanadu waxay sheegaan in magaca Galgaduud uu ka yimid deegaanada dabiiciga ah ee gobolka, gaar ahaan geedaha iyo dhulka qallalan ee deegaanka ka jira. Dhuusamareb waa magaalada ugu caansan gobolka, waxay caan ku tahay diinta, waxbarashada iyo siyaasadda Soomaaliya. Gobolku waxa uu caan ku yahay culimada Soomaaliyeed, masaajiddo iyo dugsiyo badan ayaa laga aasaasay gobolka muddo dheer. Dhuusamareb iyo magaalooyinka kale waxa ay noqdeen xarumo diimeed oo muhiim ah. Maanta Galgaduud waxa ku socda horumar muuqda sida wadooyin, waxbarasho, ganacsi iyo adeegyo bulsho. Dhalinyarada gobolka waxay door weyn ku leeyihiin horumarka deegaanka. Galgaduud waa gobol leh taariikh, dhaqan iyo haddii aad ka heshay fiidiyowan, like saar, saaxiibada la wadaag, kanaalkana subscribe garee. Mahadsanid daawade.